salaama daawadayaal halkani waa channelka wararka ee Warqad News TV ku soo dhawaada tabinteena maalinimo qodobada ugu waaweyn waxa qayb ka dawladda Mareykanka oo joojisay duqeymihii Soomaaliya ay ka fuli jirtay sababtu maxay tahay halkan ayaa idin kula wadaagi doona ciidanka booliska maamulka Puntland oo gacanta ku dhigay hubkii ugu badnaa iyo saanado kale ciidan shirka golaha wadatashiga qaran oo maalintii labaad gala iyo qodobo xasaasi ah oo looga hadlayo iyo ra'iisul wasaaraha dalka Haiti oo ka badbaaday isku dalday oo qorsheysan lagu qaaray jir qodobada iyo qodobo kale ayaan ku faahfaahineynaa tabinteena oo diyaar garooba daawadayaal mar kale kulan wacan oo wanaagsan waxaad ku soo dhawaataan qodobada aad maqasheen iyo kuwa kale oo ina faahfaahino fadlan haddii ay tahay markii kugu horeyso soo booqato channelkan iyo sidoo kale page-keena followda iyo like-ta noo saar sidoo kale YouTube-kana booqo subscribe-ka noo saar Warqad News TV haddii ayna ku bilowno dawladda Mareykanka ayaa joojisay duqeymihii ay ka fuli jirtay gudaha Soomaaliya warbixin ay soo saartay hay'ad lagu magacaabo Airways ayaa lagu sheegay in 54% hoos u dhaceen weerarada Mareykanka ee sanadkii ugu horeeyay ee madaxweyne Joe Biden gudaha Soomaaliya ee dawladda Mareykanka ka fuli jirtay tirada weerarada duqeymaha oo Mareykanka ka geysan jiray dalalka Afghanistan, Suuriya, Iraq, Soomaaliya, Yemen ayaa hoos u dhacday 439 markii loo eego sanadkii hore ilaa hadda waxaa tiradii ugu horeysay ee duqeymaha Mareykanka tan iyo sanadkii 2014 madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa isbedelkan ballaaran ku sameeyay weeraradii cirka ah ee Mareykanka kula dagaalamaya kooxaha ka dagaalama gudaha Soomaaliya ee nabadiidka ah sida lagu sheegay warka ka soo baxay bishii Agoosto sanadkii hore ayaa ugu dambeysay duqeymada Mareykanka uu ka geysan jiray Soomaaliya waxayna ahayd markii ugu duqeeyay saldhigga Al-Shabaab ay ku lahaayeen tuulada Camaare ee gobolka Mudug ee koonfurta gobolka Mudug halkaas oo ciidamada dawladda iyo kuwa Galmudug ay ka wadeen guluf ka dhanaa ururka Al-Shabaab golaha wadatashiga qaranka ayaa maalintii labaad galay ayaa ka socda magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka waxaa maalintii labaad galay shirka golaha wadatashiga qaranka ee ka socda magaalada Muqdisho oo looga hadlayo arrimaha doorashooyinka amniga dalka iyo sidii la iskula meel dhigi lahaa qorshaha geedi socodka doorashooyinka dalka oo haatan muran badan u hareeyay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble madaxda dawlad goboleedyada Jubbaland, Puntland, Galmudug, Koonfur Galbeed, Hiirshabelle iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa maalintii koobaad ka dooday sida loo sugi karo amniga dalka oo shalay ahayd madaxda ayaa maanta iska xog wareysanaya sida aynu xogta ku helnay dhamaystirka doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka 11-aad ee dalka oo ku dhawaad 30 xildhibaan horey loo doortay doorashada xildhibaanada golaha shacabka waxaa si rasmi ah loo bilaabay 1 bishii November 2021 ayna soo dhaafnay waxaana tiro dhowr jeer joogsaday muran iyo dacwado ka soo laabtay kuraasta lagu doortay Muqdisho, Dhuusamareeb iyo Baydhabo kursiga ugu horeeyay ee la doortay xildhibaanada golaha shacabka waxa ahaa hoob 239 oo ku guuleystay ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa waxaa dacwo sababtay in 7 cisho oo xiriirnaado loo gudbiyo guddiga khilaafaadka heer federaal baaris kadibna ku qasbanaaday inay fasaxaan ila wareedyo ayaa inoo sheegay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo madaxda dawlad goboleedyada Jubbaland, Puntland, Galmudug, Hiirshabelle, Koonfur Galbeed iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ay isku fahmeen in shirka la ballaariyo sida ay uga qayb gali lahaayeen dhinacyada muhiimka ah ee doorashooyinka sida beesha caalamka, taageerayaasha dhaqaalaha bixiyay, golaha midowga musharaxiinta, bulshada rayidka ee lagu biirinayo si loo helo qorshe lagu daadejin karo jadwalka kama dambaysta ah ee doorashada lagu soo gabagabeynayo maadaama dib u dhacyo xooggan ee horey u hareeyeen kulanka ee shirka golaha wadatashiga qaranka ee ka furmay magaalada Muqdisho isugu yimaadeen ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta madaxweynayaasha Puntland, Galmudug, Hiirshabelle, Jubbaland, Koonfur Galbeed iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa diiradda lagu saaray arrimaha ugu waaweyn ee doorashooyinka iyo muranka haatan ka taagan doorashada xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa la soo gabagabeeyay goorsii horeysay halka golaha shacabkana ay wali socoto inkastoo ay jiraan dhaliilo iyo tabashooyin hareeya hanaanka oo kormeeraha ka ah ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta u socotay doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya dood badan ayaa ka timid habraaca doorashada kadib markii kuraasta qaarkood uu ka yimid muran iyo isqabqabsi shirka golaha wadatashiga qaranka oo ka socda Muqdisho ayaana arrintaasi lafteeda lagu lafaguri doona iyo sidii xal sax ah iyo habraac lagu wada qanacsan yahay doorashada lagu salayn lahaa caqabadaha ay tahay in xal laga helo waa dhinaca habraaca waxaana ka mid ah xulista ergooyinka musharaxiinta iyo kuraasta golaha shacabka maadaama kuraasta xildhibaanada golaha shacabka doorashadii hore loo qabtay aysan musharaxiin dhammaystiran aysan u tartamin taas oo keenaysa inay u xirnaayeen shakhsiyaad gooni ah kadibna lagu soo saaray guddiga doorashooyinka ee doorashada hore u wada ayaa marar badan lagu cambaarayay inay hareer mareen habraaci doorashooyinka hore lagu dajiyay
si kastaba ha ahaatee maalmaha soo socda ayaa shirkan lagu soo gabagabay doonaa magaalada Muqdisho iyadoona gabagabada ay ka qayb gali doonaan wafuudo ka kala socda beesha caalamka midowga musharaxiinta iyo ururada bulshada rayidka ee Soomaaliyeed waa gabagabada shirka qodobo iyo warmartiyeed laga sugayana laga soo saari doono si doorashada lagu jiheeyo muranka badan oo sababtana xal looga gaaray iyo tabashooyinka dhinacyada siyaasadda Soomaaliya ee xilligan ay ka tabanayaan doorashada markana Boosaaso howlgal ay sameeyeen ciidanka booliska gobolka Bari ee Puntland iyaga oo kaashanaya laamaha sirdoonka maamulkaas waxay magaalada Boosaaso xarunta gobolka Bari ku qabteen gaari laga soo buuxiyo hub iyo saanado kale oo sharci darro ah saraakiil ka tirsan laamaha ammaanka ee maamulkaas ayaa sheegay in gaariga nuuciisu yahay isku rogal laga helay garaash lagu dhex qarinayay ee ku yaal gudaha magaalada Boosaaso kadib markii la helay xog ku saabsan gaarigaas iyo hubka saaran gaarigan ciid ayaa korka looga soo raray si loogu qariyo hubka saarnaa si aan loo dareemin sidoo kale ciidanka ayaa xogtiisa hayay oo ku guuleystay inay qabtaan ayaa lagu yiri war ka soo baxay saraakiisha ciidanka booliska ee Puntland sidoo kale waxa ay sheegeen inay xogteeda hayaan cidda mas'uulka ka ah gaarigaas iyo meesha loo wado hubka isla markaana baaritaan dheeri ay ku sameyn doonaan kadibna ay soo bandhigi doonaan howlgalkan ciidanka booliska gobolka Bari ay ku soo qabteen hubkan ayaa ku soo aadaya xilli dhawaan Boosaaso ay ku dagaalameen ciidanka Puntland iyo kuwa hay'adda BSF dagaalkaas oo geysta khasaare dhimasho iyo dhaawac leh iyadoona xafiiska xuquuqul insaanka ee xuquuqul aadanaha ee Puntland uu sheegay in looga baahan yahay dhinacyada halkaas ku dagaalamay inay magdhow ka bixiyaan dagaalka isla markaana xukuumadda Puntland ay la timaado isla xisaabtan iyo qaadashada mas'uuliyadda dagaalka halka ka dhacay iyagoo dhinacyada halka ku dagaal horay midba midka kale ugu eedeeyay inuu ka dambeeyo dagaalkaasi inta ayaan ku soo gabagabaynaa warka aad kala socoteen channelka wararka ee Warqad News TV fadlan muuqaalkan haddii ku soo gaarsiin share gareeyo saaxiibada kale la wadaag page-keena iyo YouTube-kana ku soo biiro maxasinidiin